حتى وحاستا وحيتا جدك قاكد مكان لا ديزت عمر إيمالينيان أما يعني أسي أو بكر أمالينيان تا مربان أي دعيب أما قف معنا وحدا وحيتا هاي قف عمر أي بلاني لهاين كده أنا وحدا وحيتا بلانتي أو محيق بحد يا بنا وحتى أنا ما حد كاديس والله يعني وحاجة وعجبنا وحيهد وأن قبل كان صار مني وعجبنا وحيدا أنا مو قف قاعد يعتهاي وأنا دا أقول نسيت كش قاعد سكرنا لا سأقول عجبنا أبو بكر محمد أنا عمر محمد أولو يقان عمر فاروق أوتا الصوماليا كل شيء كده بالكاس قام كحفظية بلغ برشة هالكاس أنكم باللعبة كدبنا وحنا وحيتا هاي دالك هولن ماشى يا إلا هي جامعات عن كسر دمشق طبعا جامعة معنا وكلية مد الدينية الحمد لله مد الدينية بجلور كعدنا الماستر كعودنا ما شاء الله تعالى لكن سيدو كلن علومته دنيا ما شاء الله تعالى وكمت هاي ميدي مانجمنت أساس كل عنيها أنا سويت ميتاسم الدنيا كله دونا لكن دين تسكوت ما كان هاي توتا هداي عمر حكوشة وحيد أسيق IT جنوكو في عيني هاي أنا بزنس مانجمنت أنصمي وحلي غاضب بزنسي كلا جت أول ذاك ودعوة هين أنا عمر جارة ولانا وحياة وكلا وجهت طبعا إلا 16 شركة ضوضان لنا أو كدون أونلاين شوبينج كا أجنس سيدو كلا ميديا لنا 16 هولن كأساسا يعني waxbarashadeena waxay ahayd mid isku mid ah alxamdulillah baa familkii iyo yani hooyo aaban sabab u ahaayeen aaba yani waxaan xasuustaa u dhigay markasto waxay ahayd yani ujeedadeeda inaad noqotaan walaalo yani kaligeen manihi dhamaanteen yani dad yani markasto isgarab qabtay marka hal ujeeda leh la waxa suurtagal ka dhigay waxay tahay xiriir badan oo naga dhaxeeya iyo waxyaabo badan oo aan wadaagno wata buuga waxa lagu magacaabaa waxay tahay ku raaxaysan noloshaada fikradu waxay ka bilaabatay waxay tahay marka ay soo wacaan dad kala duwan oo haysata murug iyo wix la mid ah ay dad badan raadinaya farxad iyo deganaanshaha iyo raaxada iyo macaanka nolosha ayaa Umar ayaan fikrad u bandhigay waxaana waxay tahay ka waran haddaan u bedelna buug wuxuu dhahay walaa fikrad fiican asaa oo tay ugu caawiyay buuga inay soo baxdo hal sano oo dhan ku mashquulsanaa habeenii maalin hadana alxamdulillah waxa dadkiisa waxay tahay in buugan sabab ay u noqotay inay bedesho dhalinyaro kala duwan noloshooda qaasatan dhanka farxadda iyo wix la mid ah mustaqbalka waxa u soconaa waxay tahay halka soconaa waa cilmiga waa isbedelka dhamaantina isbedelno isla marka aan u jiheysano waxay tahay wax aqriska iyo in yani maskaxdeena dhamaantina dhalinyarada khaasatan oo meesha yarku ku soo koobmay in la furo la hagaajiyo si bulshada ay u gaaraan meel ka waaweyn yani dhulkan aan u baxna insha Allah taala arka iyo wixii la mid ah biidnillah